telefishanka Universal waxa uu idin soo gudbinayaa waraysigii ugu horeeyay ee warbaahin Soomaaliyeed ay la yeelato Raysalwasaaraha waddanka Itobiya Haile Mariam Desalegn. Waraysigaasi Raysalwasaaruhu waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin abaaraha haatan ka jira guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan kuwa waddanka Itobiya iyo kaalinta dawladdiisu ay ka qaadanayso. First of all, I think drought is not our making. You know that this is because of the climate change effect. waxyaabaha kale waraysigaasi uu kaga hadli doono waxa kamida mudaharaadada ilaa sanadkii hore laga oogayay dalka Itobiya ee lagaga soo horjeedo dawladdiisa iyo sida uu imika uu xaalku yahay. We have tried to understand better, even though we previously also understand some of the root causes, but after this protest, especially by the young people, the youth in certain regions. isla waraysigaasi ayaa Raysalwasaaruhu waxyaabaha kale ee uu kaga hadli doono waxa kamida isbedelka madaxweynaha dalka Mareykanka iyo saameynta uu ku yeelan karayo qaaradda Afrika iyo gaar ahaan waddanka Itobiya sidoo uu arko. First of all, since the new administration has not spelled out its policy towards Africa, we cannot comment directly, but we can just predict or forecast what's going to happen. waxyaabaha kale waraysigaasi uu kaga hadli doono waxa kamida xiriirka dawladdiisu ay la leedahay Soomaaliya iyo Somaliland iyo guud ahaanba marxaladda mandaqada iyo qaaradda Afrika. First of all, the Somaliland and Somalia proper issue is that of their own, and I was so much encouraged when the current president has launched a dialogue process between Somaliland administration and Somalia as a nation. waraysigaasi haddii alla yiraahdo waxaanu idiin soo gudbin doonaa bisha February 3